magaalada taariikh 20 bishan soo dhaafnay ilaa maanta magaaladan ku sugannahay waxay ku jirtaa gilgil oo dagaal ay ku jirtay dagaalka inta hore dhankaas uu nuga jiray arbaxa miyam qamiistii aan soo dhaafnay waa la soo waday Mandera noo lagu keenay dagaalkii Mandera qayb ay ka noqotay dadka daab lagu soo dhaxdeji adigan dagaalkaas meelaad ka ahaani ma laha Mandera barkaca ku dhacday waan gari dubna nuto jira xal hadda waxaan leeyahay suuftu waxa soo degay ciidan Ethiopiana meel kale istaago waa la garan waay Mandera khatar ay ku jirtaan naalay waan kanu jadin la faandhooftu na mungaritodes islaani kanu jad gaafat waan siyatu nugaari la magar ciidinkii sunnadeebi na wantii deebisin yadan tog dhibisi mutu dhoofta fa malka marikan jeema malka reekan jira maxaad aragtaa dhihi waxaas dhaa waxoo soo socda dad aragtaan magaalo dhamaal waa la qabsaday cawada Mandera iyo balaxa wax ka dhici doon ilaahay baa garanay bas habeenkii tolo maxaa dhici doon waxa maxay ahaan doonta subaxdii markaad soo kacdo qof saddexaad weydiis waxa lagu dhihi wallahi waxaan aragnay ma laha gaarigo rondoon oo meelaan imaado oo noqdimoogii wax jir ma laha guriyaashin horta wixii ilaahay ku qoray kugu dhacayaan nina hadda ka hor ka soo cararay dhankan Bula Custom waxaas imaaday Bula Power rasaas Bula Power ugu dabimaade Bula Power ugu dhacday mar qaarkood gurigaad markaad ka bixi waxaan u maleynaa horta waxa u badan oo hadda waxaan sheegay inay nimantuugi inaan maqlaa guriyaasha halinga jabsanin wixii qadar ilaahay way kugu imaanayeen wallahi meelaad ka gali ma laha diyaarad fuusha hubi ku jirta Mandera ka cararta meelaad waagi dadka la dhameynay 36 qof markii lagu dhameeyay meesha ay dhagaxaash laga qoday ninkii zaid u halay oo reer Nyeri oo dhahay intaasna Mandera ka shaqeysanay laakiin Mandera hadda ka dam amni ma laha waan ka tagay Mandera uu ka tagay waxaas aadi Nyeri waxaas gal marka hog loo qoday hogya ku soo dumay meesha ku dhintay marka taariikhyan wixii ilaahay ku qoray meesha joogto way kugu dhacayaan aan is barkicinin anaga wiigan dawlad Kenya aan la hadlaynay dagaal Soomaali ka socda anaga mistaajin kar laakiin waxaan awood u leenahay inuu dagaal laga abaabulin magaalada Mandera Allah khayrsi sheekhtihii odayaasha magaaladii kulli gacan ay nagu siiyeen ugu dambeys dawlad Kenya wiigan dhamaal waa isla fadhinay isniinta la fadhisanay ugu dambeys shalan la fadhisanay waxaan ku dhahnay hadda bari oo jimco ah nimankaasna laga qaado waay sheekhtihii aniga waxaan ku heshiinay jimco in lagu dukado bibiwan nimankaas uli dhagax inaan ku bixin waayo dhaartaas ilaahay ku qoray waa dhimani laakiin in barkac noo lagu sameey oo dhulkeen laga duul waa waxaan ka imaan kar waxaan diid karnoon bas dawladii waxayna dhaheen markii goormaad meesh ku dukanayeen bari oo jimco ah meeshaan ku dukanaynaan ku dhaanay Sheekh Warashaan u dhiibnay alcaankii Sheekh Warashaa wareeji Sheekh Maxamuud waa nala jiri Sheekh Maxamed waa isla jirnay dawladii way qaadatay waxayna dhaheen marka jimco ka hor nimankaas meesha ay ka baxayaan anagan waxay noo taagan tahay bari jimco inaan meesha ku dukan ayagan waxay u taagan tahay jimco in la gaarin in nimanka meesha laga kicinaay ka kicis ma noqon doona inay dagaal galayeen iyo in meesha laga qaado oo meel kale geeyna Allahu a'lam laakiin waxayna dhaheen intaad meesha ku dukanin ka hor aan ka bixinayna marka anaga dawladda Kenya meesha ay noo kala taagan tahay raaciyad waxay rabin ma lagu qasbi kara marka dadkan garab ka raadinayn anigu waan hadlaynaa laakiin dadka garabka laga raadinayo waa idinkoo meeshaan fadhidaan iyo dadka kale oo magaalo noogu maqan garab nagu siiya dulmi waagi hadda ka hor dagaal markuu bilowday dad qaarkood way rumaysteen soo maaha waxaa la markii kuwaan haddaaba ay rumaysteen khatara meesha ka soo socotay hal carara nimanka Kenya waxaan ku dhahan marka anaga meesha waadayna waan ku dukanaynaa nimanka waan iska kicinaynaa ceeb ay ku tahay marka dawladda Kenya
inay meeshaas ay gaarto marka insha allah bari subaxdan isu qabsanay bari salaadii ma noqon doonta dagaal ama waa la kicin doonaa allahu aclam waxaan ognamaa laakiin haddaan fiirin saansaan dagaal meesha ma ka muuqda in la kicin doonaan u malaynaynaa hadday kicin waayaan gacan ugu sii insha allah reer Mandheera haddaan nahay waa codsi oo ninga codsanaynaa bedelkaad gurigaad ka kici leed wixii yar oo kugu jira iska kiciy insha allah marka intaasaan ugu bixi midda labaad magaalada waa la socotaan xoogaho dhankan Soomaaliya iyo Itoobiya xarbi ayaa ka jira marka cabsi badanna way jirtaa dadka dhinacan degan xalay intii u badan maartay dhinacan ay u soo qaxeen marka waxa ilaahan ka baryeynaa in ilaahay naga qaboojiyo in maartay amniga dhankan Soomaaliya dad walaalaheen oo isla dhashay oo hadda maartay qori isku qaadanaya oo anagana bahargacin raba marka in ilaahay maartay niidooda soo celiya oo magaaladan amnigeedana ilaahay noo soo celiya ilaaha ka baryeynaa